Maalintii xigtay, Master Sambi wuxuu yimid dugsiga halkaas oo uu kula kulmay Dawn. Iyadna waxay u kaxaysay dhanka imtixaanka. Markii ay goobta soo gaadheen, dad aad u badan ayaa meesha joogay. Master Sambina Dawn wuxuu weydiiyey haddii uu qofku qaadi karayo diyaarad, miyuu u baahan yahay inuu imtixaanka galo. Iyadna waxay ku tidhi haa dabcan wuu u baahan yahay maadaama dadka badankoodu midaas samayn karaan. Intaas kadibna macalinka ayaa goobta soo gaadhay isagoo u sheegay inuu isagu imtixaanka ka qaadi doono, halka uu bilaabay inuu ka hadlo taariikhda dugsiga iyo sidii loo aasaasay. Intii uu ka hadlayeyna, Master Sambi ayaa su'aal weydiiyey oo ku yidhi haddii halkan laga dhex helo Sambi, maxaa lagu samaynayaa Sambiga? Isla markaana macallinkii intuu qoslay ayuu ku yidhi cadcad ayaa loo jarayaa kadib albaabka dugsiga ayaa lagu xidhayaa, xiniyahana waa laga goynayaa. Intaas markuu Master Sambi maqlayna aad ayuu u naxay. Cabaar kadib waxaa bilaabmay imtixaankii, iyadoo ay ugu horreysay imtixaankii orodka. Markii la bilaabayna, mid ka mid ah ardaydii ayaa markiiba kusoo wareegay goobtii dhammayd 3 ilbiriqsi gudaheed, isagoo isla markaana kaalinta koowaad galay, isagoon Master Sambi waxba qaban. Kadib waxaa ku xigay imtixaankii labaad oo ahaa rasaas rididda iyo shiishka. Imtixaankanna Dawn ayaa ku guulaysatay oo kaalinta koowaad qaaday maadaama ay si fiican u taqaanay hubka iyo rasaas rididda, halka uu Master Sambina iska taagnaa isagoo aan waxba qaban. Isla markaana Master Sambi gebi ahaan imtixaankii uu ku khasaaray oo waxba muu qaban. Kadib waxaa la gaadhay imtixaankii dhagax tuuridda. Dhanka kale, macalinka ayaa dusha ka daawanayay Master Sambi isagoo la yaaban sida uu daciifka u yahay, maadaama uu isaga dugsiga kusoo dartay commander aad u awood badan iyadoo sheegtay inuu iyada xitaa ka awood badan yahay. Balse markuu Master Sambi arkay, wuxuu la yaabay daciifnimadiisa, laakiin wuxuu isweydiiyey haddii uu qarinayo awooddiisa. Kadib waxaa loo gudbay imtixaankii kale ee waran tuuridda ahaa, isagoo isla markaana ardaygii koowaad tuuray warankiisii isagoo meel fog ku tuuray oo lagu qiyaasay 32 kiiloomitir. Kadib Master Sambi ayaa ku xigay, laakiin macalinka ayaa joojiyey isagoo ku yidhi sababtaad awooddaada u qarinaysaa waa maxay? Haddii aad awooddaada qarinaysid ogow inaad imtixaankan aad ku khasaari doontid oo aanad halkan ka tegi doontid, xitaa haddii commanderku adiga iskuulka kugu soo dartay. Ma laga yaabaa in adigu Sambi tahay oo adigana awooddaada qarinaya ayuu yidhi, laakiin Master Sambi ayaa markiiba qayliyey isagoo yidhi anigu maya Sambi ma ihi. Kadib macalinku wuxuu ku yidhi na tus waaya awooddaada saxda haddaad Sambi ahayn. Master Sambi meesha ayuu soo istaagay isagoo isla markaana warankii qabsaday. Kadib wuxuu soo xasuustay noloshiisii oo dhammayd iyo hadafkiisii ahaa inuu bini'aadamka la saaxiibo, isla markaana fursaddan muu khasaarin karin, isagoo soo xasuustay tababarkiisii iyo waddadii dheereed uu soo maray. Isla markaana warankii ayuu qabtay isagoo cagtiisii dhulka ku adkeeyey meeshiina burburiyey, halka dabayl xoog badan dhankiisa ka timid oo dadkii daadisay. Isla markaana warankii ayuu cirka u tuuray isagoo dayaxa ka dhex saaray. Dadkiina yaab iyo amakaag ayaa soo buuxiyey, macalinkii indhaha ayaa kasoo dhacay yaab awgeed. Isla markaana Master Sambi qaabkiisii oo dhammaa wuxuu isku bedelay mid cadho badan. Intaas kadib dadka ayaa cirka kasoo daatay halka uu Master Sambina cirka eegayey. Kadib Dawn ayaa u timid iyadoo la yaaban awooddiisa. Kadib waxaa ku tidhi ilaa intee in leeg baad tuurtay, laakiin wuxuu ku yidhi kaliya cirkaan u tuuray. Dhanka kale, dhagixii dayaxa kasoo go'ay ayaa isaga caayayey maadaama uu dayaxa kasoo gooyey. Intaas kadibna waxaa loo oggolaaday inuu dhigto dugsiga. Kadib wuxuu weydiiyey haddii uu guriga qaban karo, laakiin Dawn ayaa joojisay iyadoo ku tidhi awooddaada waxaad ku noqon kartaa guddoomiye, sida guddoomiye Violet oo kale, maadaama ay maamusho ciidan aad u tiro badan iyo hub aad u tiro badan. Xitaa waxay maamushaa magaalo dadka ku nool ay gaadhayaan 30 milyan oo qof. Kadib waxay soo galeen qaybtii shaybaadhka ee hubka lagu sameeyo. Kadib wuxuu arkay sawir meesha ku yaala isagoo isla markaana weydiiyey cidda uu yahay. Kadib waxay ku tidhi kani waa Professor Chami, wuxuuna ahaa guddoomiyihii hore ee halkan, laakiin markii xaaskiisii dhimatay halkan wuu iskaga tegey maadaama uu shaybaadho badan ku sameeyey Sambiga iyo bini'aadamka. Isla markaana dadku way kasoo horjeesteen qorshihiisa iyo fikirkiisa. Kadib macalinka ayaa soo galay meesha iyadoo isla markaana weydiisay Dawn waxay rabto. Kadib Dawn waxay ku tidhi waxaan rabaa meelaan hubkayga ku qarsan karo, waxaan rabaa inaan hub badan isticmaalo, kadib kolba mid aan la soo bixi karayo. Kadib waxay u soo jeesatay Master Sambi iyadoo weydiisay waxa uu rabo, laakiin markay aragtay way ka naxday wejigiisa maadaama uu Sambi ahaa, iyadoo isla markaana ku qaylisay inuu Sambi yahay. Laakiin Dawn ayaa dejisay oo ku tidhi Sambi ma aha ee waa qof caadi ah laakiin maaskara ayuu xidhan yahay. Macalinkiina wuxuu ku yidhi ma weyna waxaa rumaysanayaad u haystaa waan arkay inuu Sambi yahe. Laakiin Dawn ayaa ku tidhi maaha Sambi, anigaaba arkay markii dhaweytoole waranka uu tuurayay wejigiisa, waa qof caadi oo qurux badan weliba. Isla markaana macalinkii way rumaysatay. Kadib waxay weydiisay Master Sambi waxa uu rabay, isna wuxuu ku yidhi mar kasta oo aan dagaal galo dharkaygu wuu googo'aa, marka waxaan rabaa dhar aan iga googo'ayn. Intaas kadib waxaan aragnaa marshalkii oo jilba joogsan isla markaana hor fadhiya guddoomiyihii ururka seefyahanada. Kadib wuxuu sheegay inaanu garanayn waxa dhacay oo kaliya uu miir daboolsamay uuna xasuusan sidii looga badiyey. Kadib guddoomiyaha ayaa weydiisay haddii uu Master Sambi iyada ka awood badan yahay, isla markaana wuxuu sheegay inuu iyada xitaa ka awood badan yahay. Kadibna waxay weydiisay halka uu joogo, iyadoo isla markaana dhankiisa u soo kacday. Iyada magaceedu waa Shang, waxayna tartan kula jirtaa Violet oo ah guddoomiyaha kooxda mindiyaha, halka ay Shangna tahay guddoomiyaha kooxda seefaha. Tartankanna wuxuu soo socday
socday muddo dheer oo boqolaal sano ka badan. Dhanka kale, Mr. Sambi casharka ayuu si fiican u baranayay oo wax kasta oo macalinku sheego uu qoranayay, laakiin dhammaantood ayaa mar qura loogu yeedhay inay imaadaan hoolka weyn ee tababarka. Markii ay meesha yimaadeenna waxay isweydiinayeen waxa la qabanayo iyo waxa dhacay, laakiin Violet ayaa aamusisay labadooda oo ku tidhi aamusa, maadaama anu dugsiga idinku soo daray sumcaddayda ha ku ciyaarina. Kadib way iska aamuseen. Dhanka kale, dusha waxaa ka eegayay Shang, iyadoo gacanyaraheedu u sheegay inuu kaasi yahay Mr. Sambi, isla markaana wuxuu ku yidhi ma rabtaa inaan awooddiisa soo tijaabiyo. Adna haa ayay ku tidhi, laakiin intaanu gaadhin ka hor waxaa meesha soo galay guddoomiyihii ugu awoodda badnaa meesha, isagoo isla markaana dhanka Shang soo eegay isagoo ku yidhi wax arbusho meesha ha ka samayn. Iyadna waxaa ku tidhi haye oo meesha waan iskaga tegayaa baanu. Kadib gacanyaraheedii ayaa ku yidhi maad rabin inaan tijaabiyo awoodda Mr. Sambi, laakiin waxaa ku tidhi anu waxaan kaliya qadariyaa dadka awoodda badan, marka Mr. Sambi dib ayaan u dhiganaynaa. Intaa kadib guddoomiyihii wuxuu sheegay oo uu shaaca ka qaaday in la soo qabtay basaas u shaqeeya Professor Chami, isla markaana wax kasta oo lagu sameeyey wuu hadli waayey. Irbadaha jirkiisa lagu duray wuu hadli waayey, xiniyaha laga gooyey wuu hadli waayey, si kastoo loo galay wuu hadli waayey. Markaa qofkii ka hadashiiya waxaan ka dhigayaa ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenkayga. Isla markii hadalkaa dadkii malqeen aad ayay u farxeen, iyagoo isla markaana mid kastaba yidhi anaa ka hadashin karaa. Laakiin 2 saacadood kadib cidna way ka hadashin kari weyday oo wax walba oo ay isku dayeen dadkii way ka hadashin kari waayeen. Laakiin Dawn ayaa weydiisay Mr. Sambi hadduu isagu ka hadashin karo, isna wuxuu ku yidhi haa waan ka hadashin karaa, weliba waan ka ciyaarsiin karaa isaga. Dawn markiiba gacanta ayay taagtay iyadoo isla markaana sheegtay inuu Mr. Sambi ka hadashin karo ninkan. Guddoomiyihiina hore u soo baxay ayuu ku yidhi. Kadib Mr. Sambi qolkii ayuu soo galay ninkii uu fadhiyey, kadib gacanta ayuu ka jeexay, isagoo isla markaana ninkii ku qoslay oo ku yidhi ma waxaad u malaynaysaa inaad gacanteeda yaraad jeexday ay iga hadashin karayso? Maya keliya waad istaalinaysaa ayuu ku yidhi. Laakiin Mr. Sambi wuxuu ku yidhi istaag, isla markiiba ninkii wuu istaagay, dadkiina way yaabeen. Kadib wuxuu ku yidhi magacaaga ii sheeg. Ninkiina wuxuu yidhi magacaygu waa Shiokai, isla markaana dadkii saa'id ayay u sii yaabeen, iyagoo isla markaana isweydiiyey haddii uu Mr. Sambi maamuli karo dadka maskaxdooda. Mr. Sambi keliya wuxuu sameeyey inuu unugyadiisa Sambiga ah dhex geliyo jidhkiisa, kadib wuxuu maamulay maskaxdiisa. Isla markaana Mr. Sambi wuxuu ku yidhi waxaad u shaqaysaa Professor Chami soo maaha? Ninkiina wuu ka jawaabay haa ayuu ku yidhi. Kadib wuxuu ku yidhi halkuu Professor Chami joogaa? Isla markaana ninkii wuxuu sheegay inuu 500 mitir dhulka hoostiisa ku jiro oo halkaa uu qorshihiisa ka wado. Kadib wuxuu weydiiyey waxa ay ku sameeyeen Sambiga ee uu Sambigu la waaweynaaday. Isla markaana Shiokai wuxuu sheegay inay Sambiga sun ku daadiyeen, iyagoo markaa Sambigiina suntaa cunay. Kadib suntaasi waxa uu awooday una ogolaatay Professor Chami inuu maamulo unugyada Sambiga, isagoo isla markaana u bedelaya Sambiyo awood badan oo waaweyn. Isla markaana markuu xogtii ka soo dhamaystay Mr. Sambi wuxuu ku amray isagoo luuqadii Sambiga ku hadlaya ayuu ku yidhi waxaad tahay qof xun, dhammaantiin waxaad tihiin qof xun, isla markaana waxaad samaynaysaa amarkayga ayaad qaadanaysaa, kadib waad isdilaysaa iyadoon cidna ku dareemin. Kadib meesha ayuu iskaga soo baxay. Dhanka kale, Professor Chami ama Fei wuxuu gacanyarihiisii u sheegay inay cadowgoodu ogaadeen meesha ay joogaan maadaama basaaskii hadlay. Kadib wuxuu yidhi meesha aynu ka baxsanno, laakiin Fei wuu ka diiday midaas. Wuxuuna yidhi waxaan u baahanay inay imaadaan maadaama aan rabo inaan tuso shaybaadhkii ugu weynaa ee aan sameeyey, kaasoo adduunka dhan bedeli doona. Markii uu Mr. Sambi soo baxayna dadkii oo dhan way la yaabeen, iyagoo isla markaana ka yara baqanayay. Kadib guddoomiyaha ayaa ku yidhi shaqo fiican ayaad qabatay, isla markaana i soo raac si aan kaaga soo dhigo kuuguna soo saxiixay inaad noqotid guddoomiye ku-xigeenka. Isla markaana meesha way ka soo baxeen. Dhanka kale, Shang iyo gacanyaraheedu waxay la yaabanaayeen waxa uu guddoomiyuhu ka hadlayo, maadaama aan loo baahnayn in waraaq la saxeexo haddii qof laga dhigayo guddoomiye ku-xigeen. Kadib waxay go'aansadeen inay soo daba galaan xaafado cidla ayay isla yimaadeen, isagoo isla markaana guddoomiyihi hadlay oo yidhi waan ogahay inaad Sambi tahay, markaa sideebaad u awooddaa inaad ugu hadashid luuqadda bini'aadamka? Isla markaana Mr. Sambi wuu yara yaabay, laakiin isla markiiba guddoomiyihii intuu hubkiisa soo saaray ayuu ku soo riday dhankii Mr. Sambi, kaasoo Shang iyo gacanyaraheediina wax ku noqon gaadheen, iyagoo laakiin si degdega ugu baneeyey. Intaas kadib waxaan aragnaa Mr. Sambi oo kurku ka go'an yahay, laakiin isla markiiba xawaare saa'id ayuu kasoo dhaqaaqay isagoo cunaha ka qabtay guddoomiyihii. Gudoomiyihiina wuu yaabay, laakiin ciidankiisii robot-ka ayaa isla markiiba ka soo gaadhay, kuwaasoo soo weeraray Mr. Sambi. laakiin weli guddoomiyaha yaab ayaa wejigiisa ka muuqday maadaama uu Mr. Sambi si yar oo fudud u burburiyey robotkiisii dhammaa, isagoo weliba kurku ka go'an yahay. isla markaana Shang iyo gacanyaraheedu way la yaabanayeen waxa dhacaya. Mr. Sambi markiiba wuxuu soo weeraray guddoomiyihii, iyagoo isla markaana weerar isku qaaday, halka guddoomiyihiina rasaastiisii isticmaalayay isagoo isla markaana madaxa kaga dhuftay haddana. laakiin Mr. Sambi waxba ma noqon. kadib Shang gacanyaraheedii ayaa ku qayliyey in guddoomiyuhu dhibaato ku jiro, laakiin Shang ayaa ku tiri may dhibaato kuma jiro, weli awooddiisii saxda ah ma soo saarin. kadib Mr. Sambi kurkiisii ka go'ay ayaa isla markiiba bilaabmay inuu sidiisii hore kusoo noqdo, taasina aad ayay uga yaabisay iyaga. kadib Mr. Sambi ayaa hadlay isagoo yidhi markaa ma rabo inaan kula dagaalamo ee aynu wada hadalno. laakiin guddoomiyaha ayaa yidhi ma waxaad rabtaa inaad maskaxdayda maamusho? taasi caqlagal maaha maadaama oonan anigu bini'aadan ahayn. kadib wuxuu yeedhay roobadadiisii kale, iyagoo isla markaana jidhkiisii ku dhegay. isna wuxuu xidhay gaashaan iyo armor robot ah, isagoo isla markaana yidhi anigu ma ihi qof bini'aadan ah, isla markaana ma kantarooli kartid maskaxdayda. kadib weerar ayuu kusoo qaaday Mr. Sambi, isagoo isla
markaana saa'id u jir dilay halka uu Mr. Sambina aan waxba qabanayn hawada ay iskula baxeen kadib dhulka ayuu kusoo tuuray Mr. Sambi isla markaana gudoomiyihii saa'id ayuu qayliyay isagoo yidhi Sambiga adduunka ku nool oo dhan waa inay dhintaan kadib awood aad u badan ayuu afkiisa kasoo daayay taasoo Mr. Sambi ku riday isagoo isla markaana moodayay inuu Mr. Sambi dhintay laakiin Mr. Sambi waxba ma noqon isagoo isla markaana kaliya dharku ka googeen ayuu soo muuqday kadib kor ayuu u qayliyay isagoo dhagaha xanuujiyay dhammaan wixii meesha joogay kadib wejigiisa wuxuu bilaabmay inuu isbedelo indhihiisa waxay noqdeen kuwo madow oo guluub cas leh halka uu qaabkiisii oo dhanna isbedelay dabeecadiisiina way isbedeshay gebi ahaanba gudoomiyihiina wuxuu isweydiinayay waxa uu yahay Mr. Sambi irkii oo dhan wuu madoobaaday isla markaana adduunka oo dhan ayaa laga arkayay waxaan ka dhacaya daruuro madow ayaa meeshii oo dhan kusoo xidhmay kadib Mr. Sambi ayaa si qallafsan u hadlay isagoo ku yidhi bini'aadam yow yaro xuni waxaan ku siiyey fursadan ku wada hadalno laakiin fursaddii waa diiday soo maaha ii sheeg sidaad rabtid inaad u dhimatid isla markaana Shang iyo gacanyaraheedu waxay la yaabeen qaabka uu isku bedelay Mr. Sambi iyagoo isla markaana go'aansaday inay meesha iskaga yaacaan halka uu gudoomiyihiina isagoo ku qayliyay isagoo ku yidhi sidee baad ila hadashaa adigoo Sambi yaro xun ah isla markaana Shang iyo gacanyaraheedii iyo ordaya ayaa weerar kusoo ag dhacay markii ay hoos u eegeenna waxay arkeen gudoomiyihii oo jirkiisii oo dhan googo'ay kaasoo Mr. Sambi dul taagan yahay kadib gudoomiyihii wuxuu amray roobadadiisii isagoo isla markaana ay roobadadiisii dhanka Mr. Sambi u soo ordeen iyagoo isku qarxiyay isaga halka saddexdoodiina meel kusoo dhaceen kadib gudoomiyihii ayaa sheegay in Mr. Sambi aad u awood badan yahay uu khatar badan yahay laakiin Shang way ku qaylisay isagoo iyadoo ku tidhi maxaad uga cadhaysiisay adigu kadib waxay go'aansadeen in meesha saddexdoodii iskaga yaacaan iyagoo isla markaana ordaya ay meeshii kaga yaaceen Mr. Sambina kamuu daba ordin kaliya gacantiisa ayuu kor u qaaday isagoo isla markaana dhulka feer ka jaray Shang oo ordisay ayaa isla markaana xaqiiqsatay inuu dhulku kor u soo kacayo marka ay kor eegtayna waxay aragtay in magaalada kala badh oo dhan ay soo kacday Dawn oo dugsigii joogtana halkaas ay ka arkaysay halka dadkii kale magaalada joogina ay arkayeen dhammaantood magaaladii oo dhan oo kor u kacday gudoomiyihii oo saa'id u orday ayaa gidaarkii ku dhacay isagoo isla markaana uu Mr. Sambi ka daba yimid kadib madaxa ayuu ka qabtay markaasuu ku yidhi imika ma dareemaysaa cabsi